السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي لما دقستي الكسور دوادا برنامج كيني سراعة في صوماليا وضغط بالله ما انت كداون دونتان شاشدين العالمي جاي كلسن تي في waxaanu mar labaad idin leenahay markii koowaad idin leenahay ku soo dhawaada Kalsan TV iyo barnaamijkii Israaca Soomaaliga oo maanta wixii ka dambeeyay maalin wala axad hadii Ilaahay wada leh uu ogolaado 6 galabnimo ee London time ka daawan doontaan shaashadan Kalsan TV barnaamijkii Israaca Soomaaliga. Bismillah. maanta waxaan doonaynaa inuu قبناير ما دام أي تايم أنتي جوه رئيسي أنا كسر بحنا شاشة كالسن تي في برنامج إسراع في الصومال جوه وريجي بواحنا بابل هذا واحد بدأ إنه أفر وحيابات إنه قيبنا برنامج كين إنه قبناير له قيبنا ما أنت وحي كتب بيه أو قيب ويشه قيبتك واحد واحد نقول هذا دون ما أنت أفكا وهي هي أفكارته قيبت لبعضنا واحد نقول هذا دون بلا جرتي الصومال ده يسيد وقيب سميسي يقول حبا يسكود حرسيه بلا تسي وإحنا لوجا فايده وحنا نسكت صالين وحنا نكون كلا قادرنا dadweyne hana daawanayna waxaan jeclaan doonaa kulay waxa lagu soo qori doonaa ama injineer ku soo qori doonaa shaashadan imika inaga hooseysa telefoonka hadhowto kala soo xiriiri doontaan ama magarasa xilliga telefoonka gora waa telefoonka imika halkan ku yaala marka qaybta saddexaadna waxaanu kaga hadli doonaa hees hore qaladaad uga yara soo baxeen ama magarasa ayaan ereyada yara qalday laakiin aan imika soo doono oo khuseynaysa bal heesta ugu dambayso ah marka heestii anshaxa ayaynu qubanaynaa marka waxaanu soo qaadanaynaa maanta wuxuu yahay waa maxay afku af Soomaali baynu doonaa inaynu yara taabano oo isla tusno waxaynu ku hadalnaa af Soomaali marka warsa afku waa nimcooyinka uu Ilaahay ku manastay ummadda ابن آدم كهو أبوري وهو حكي لي هلا أما إذا فكر شو هذا تواقله إنك استحيوانك بدي كل ملاق دي أيوة إذا فكرتان أيوة حيابا قاعد أسوا فكرتان هذا الكون حب وقاري هون آدمه والنمعه سورة الرحمن يا أيها دوجه يا دي شيء يا مقرن سعيه هذا مركز دي إلهي سبحانه وتعالى وقلده وآدميه سوكو قلدي وكشكيني شخص انت وهردموي انت كلو هضله أفكو والله مركز الدنيا حضرك أما أفكن أنه كهضلين مروا أنا قلنا والد الله ضيا ودواقية وبيجا صباحي مروا يجوا قرصويه قفل البلاد من نوعين كا مرة هلاية وكانوا دواقي وصباحي محن حتى بكو هلاية وحن كو هلاية وحي فكر كيجا كتري وحي مسكح ذي إيه دريم ذي إيه درين كيجا أي سو قدبيين أيان دواقي هان إمي كوسو قدبيين سي أي فهمتان هل كان مركز هني مكفوليان صداي راه إمي كواحد يدك قبضتين ضدك كداونا يا محي كامسين محي كليين لكن ده إجماع يصابحين لكن إيه كمان كان ذي شيء جيبان أفكسر قد بيه معنى هذا أنت كلاء المقال هنا والفكر يا ونسلها الله يا قف كله يحب يسكلها الله أنتوا أفكار كي يقانو قف كله يفكر أنتوا أفكار كي يقانو قف كله الله أنتوا أفكار كلمة كي يقانو قف كله يدك كالعيا أنتوا كلمة كي يقانو قف كله يفكر كرابة أنتوا أريا كي يقانو اللي وحي أنا هذا قولين مكيني سدي شخص يقول وحو أفكار برتا أنت أفكيسة كي يقانو واي شنطة دريمة إيه إلهي لسيي سبحانه وتعالى أرقي أو إندهية سنكي أو أرتية بجيهي أو مقالكية عربكي أو ددنكية أما أفكو ددنا هي أفكي كسو بحي هي تابشة دي درين كاس تابشة كوغما سو غدبين كرو
taabasho dareen waxa aan dareemayo imika taabasho kuguma gudbin karo waxa aan dareemayo urkuguma soo gudbin karo waxa aan arkayo arag kuguma soo gudbin karo waxa aan arkayana maqal kuguma soo gudbin karo laakiin maqal waxaan kuugu soo gudbin karaa markaan dhawaaqo ee aan erayo ku ilaahdo ee aada maqasho walo imika la gaaray qofka dhigaa aan lahayn bada in qaalad lagu gudbin karayo markaa dareenkiia oo taabashadii haddii qofku dee dhegala yahay taabashada xarfahan uu taabanayo ama maganaysaa dee sign baa jira lagula hadlo ama qofka indha alla waxaa jira dee waxa uu isaguna dareen taabashadii baa loogu soo gudbiyey markaa hadda u fiirso taabasho ayaa loogu soo gudbiyey way qofkan dhegaha la-ana aragti science baa loogu soo gudbiyey waa shantii dareeme intubana dhawaaqa unbay ka unkamayaan iminka haddii aan soo qaadano dhulgariir dhulgariirka miyaa la maqlaa miyaa la uriyaa miyaa la arkaa miyaa la dhadhamiyaa miyuu ku taabanayaa waa maya maxaad ku dareemaysaa haddaba dhulku inuu gariiray maxaad ku dareemaysaa inuu dhulki gariiray su-aal isweydiina ila kumuu taabano taabasho kuguma imane laakiin dhaqaaqii uu dhaqaaqay dhulku ayaad adigu dareemaysaa dareenkii taabashadu kuu soo marayaa markaa sanqari okay waxaas oo dhan nimcada uu rabbi kugu siiyey inaad ku gudbisaa waa dhawaaq waa hadal niyo gaas baa uraysa niyo betrol baa uraya urtii aad garatay baad waxaad u bedeshay erayo maskaxdaada waxa ku soo dhacay urtaasi inay tahay betrol baad urisay maskaxdii waxa ay soo fariin soo faraysaa qaybtii hadalka iyadoo erayo u soo bedeshay dabeedna wuxuu odhanaya waa niyo betrol baan urinaya dabeedna anigoo halkaa fadhiya arag iyo uriyo dareen midna kugu dareemi maayo waxaan maqlayaa inaad waxaad urisay uu betrol yahay baan anigu maqalkii aad hadalkii aad la hadashay ayaan ku dareemayaa taasina waa nimcooyinka communicationka uu ilaahay aadamihiisa ku manaystay hadalku hadalkaa haddaba qofka soomaaliyeed wuxuu wax gudbin karaa gebigiisuba wuxuu wax cabiri karaa ama gudbin karaa ama qancin karaa ama soo jeedin karaa intuu erayo af soomaaliya ka yaqaano waxa uu gudbinayo erayada aad taqaanona ma dhaafayo intaasu baad ku celcelinaysaa midba ninkuu ka af soomaali badan yahay barashadiisa ka eraya badan yahayna wuu ka gudbin iyo balaaqad iyo fahamsiin badan yahay qofkan kale waayo waa inta aad xidhiir la yeelan karto bulsho kale ama qof kale intaad eraya ka taqaanaa erayada af soomaaliga ee aada leedahay horta macnaha intaa leeg waana nimcooyinka akhire layna weydiin doona de ayay ka mid tahay dhawaaq waxaad maqashaa waa hadal waad maqashaa waxaan hadal ahayn waad maqlaysaa dhawaaq baad maqlaysaa waxaan sanqadhna ahayn dhawaaqna ahayn baa jiro sanqara dhawaaqna aan ahayn hadalna ahaynoo sanqaraa jira iyaguna sanqadhu dhawaaq ma aha waa sanqaro way kala duwan yihiin maqalkii xayawaanku markay ciyaan waa dhawaaqa qof baa yeedhaya waniyo dhawaaq baynu maqlayna masalanse waniyo maxaa halkaa ka ciyaaya maxaa halkaa ka dhawaaqaya aadamaha dhawaaqadeeda xayawaankuna wuu ciyaa shayguna wuu sanqanaa shayaal sanqanaa jira sida kooraha iyo cub oo la sulay koramo buubaala ama beelo kaynaan ah oo koru hayaamaya
beerahaasi waa bilaadanki keenaanka hay hayaan oo colkii abaartu galeen sanqaraha dusuuda iyo weelasha iyo magaranaysaayay waxa materialka markaasi aalada shayaadka ay sitaan sanqadooda weeye waa gabi wada sanqarab waxa ama ceel karkarada shiyoobi kara dhaafay shinika alaf kale ama sakoronka ko ooy shayga sanqara marka waxa weeye maqalka wixii aad maqlaysay baa kala duwanaada gariir baa jira gariir aan dhawaaqna ahayn sanqadna ahayn hubku marna wuu dhacaa markuu dhacona wuu gariiraa gariir buu keenaa aragga intaa haddaba aan maqlay oo dhan inta maqalkaa aan maqlay oo dhan waxaan kuugu soo gudbin karaa maqal ma aha intaa soo qaada dhegtaadu wada gelin kari maayo af baan kuugu waa inaan erayo u bedelaa kugu fahansiiyaa wixii aan maqlay erayo waryaa cod quraan baa halkaa ka baxaya waryaaba suuratulbaqra abilabi iladay wixii aan maqlay oo ah suuratulbaqra kuma odhanayo intaasaa ku eego markiiba deedna niyaddeeda akhrisan maysid suuratulbaqra ila dhegeyso maya waa inaan ku idhahda waa bilquraan kan dhegeysa hadda suuratulbaqra halkan ka baxayse markaasaad qab hadal baa kuugu soo gudbiyey waniyo gariir baan maqlay gariir baan dareemaya maqlaya ormist waniyo gariir baan dareemaya waa dareen buu gariirku ku yimaadaa maqalkuma yimaado de markuu guuxa isu bedelaabaad maqlaysaa laakiin intuu gariirka yahay waa dareen moobiladan aad haysataan fabratorka marka lagu yidhaahdo halkaa isagoo jooga marka uu miis saaran yahay quraarad ama miis jaandiya uu saaran yahay wuu sanqanayaa gariirkiibaa isu bedelaya sanqada waayo wuxuu la falgelayaa shayga inuu saaran yahay laakiin marka aad sidaa u hayso ma sanqarmayo laakiin gariir baad dareemaysaa fabrator gariirkii baad dareemaysaa dareen buu markan kuugu yimid dhegta kuuguma iman waxa aan gudbin karaa waa intaan af soomaali ka aqaanin baan gariirkaa gudbin karaa marka adiguna waxaad igu fahmaysaa keliya waxa ay tahay aad igu soo gudbinaysaa waxaad gariir dareentay dareen igu soo gudbinaysaa afbaad igu soo gudbinaysaa waa awoodaha uu afka uu leeyahay ilaa maanta ka sheekeynayna maansada soomaalida marka aynu haddaba u soo noqonno waxaynu in badan nidhi waa humaag iyo sawir qaadasho iyo af soomaali u bedel af soomaali u bedel af soomaaligii markuu soo bedelo ayuu shuruuc buu raacinayaa dabeedna wuxuu raacinayaa siduu kaaga dhaadhicin lahaa oo soo gudbintii ninkani markuu wax kuu soo gudbiyey markiiba waxaad odhanaysaa o waa gabay jacayla waa hees jacayla siduu kugu soo gudbinayana garatay muxuu soo gudbiyey humaagii si aad humaagaa u hesho waa inaad ka tagtaa soo gudbintan ilaa af buu ku soo gudbinaya ka tag shuruucdana waad ka tegaysaa af soomaali u bedelka sawir qaadashada af soomaaliga loo bedelay baad daalacanaysaa sawirkiiba humaagiiba ku tusaya waxaasoo dhan waxa kugu soo xulay soo gudbintan waa af soomaaliga kugu soo gudbiyey baad dib kuugu qaatay wixii ninkaasi arkayo uu soo gudbiyey inaad dib u gasho adiguna waa da farshaxanimada la isleeyahay qofku siduu u geli karo kolle haddana waayo waxa weeyaan humaag sawir qaadasho af soomaali u bedel shuruucdii iyo soo gudbintii adigu haddaad istiraado humaagii doono ma helaysid waa inaad ka bilowdaa halkii hoose tiisii shanaad waa inaad adigu number one ka dhigataa waa inaad tidhahda war muxuu soo gudbiyey dabeedna tidhahdaa waa gabay dabeedna dhacdadii gabayga iyo wixii da kugu xidhan ba dhag af soomaaligii loo bedelay halkaa markaad maraysaa bad horta ninkii isu imanaysaa af soomaaliga humaagii af soomaaliga u bedelay dabeedna sawir qaadashadii baad gelaysaa sawir qaadashadii markaad geshana humaagii baad u gelaysaa sidaasaad marka u fahmaysaa adiguna waxaasoo dhan oo humaagee halkaa jiifa ee ninkani sawir maskaxeedkan uu daawanayo wuxuu ku soo gudbiyey waa af soomaali ilaa haddii kale ku odhan maayo isagoo aamusan caqligeega intuu kuu bado halkan dee sidii buugga ku daawadsiin maayo waa af soomaali waxaanu kugu daawadsiinaya waxaan caqligiisa ku jira ee ku sawirsiinaya afka noocaasabaa wuxuu kala leeyahay si farshaxnimo
sidii loo dhigayey qaababkii loo dhigayey waa badan dawal sharaxaad fara badan imika bilicdii guud baynu siin doonaa dawladda maalin walba qaybaha ugu horeeya barnaamijkeenu ka dhigan doonaa bil haddii inaynu fahansiino marka qaybtan maanta kusoo gabagabeynaa af Soomaaliga waxay tahay soo gudbinta ayaa farshaxanimo ku samaysan ninkii intaasoo humaagiisii iyo dhimirkiisii iyo maqalkii iyo urtii oo wixiiba hadday noqdeen ba in hadal isku faahsiiyay hadalkii inuu yahay ninkii intuu af Soomaali ka yaqaan ayaa waxa lagu larayaa farshaxanimo haddana leeysa sii dheer yahay ninku markuu af Soomaaliga balaaqi ku noqdo wuxuu bartaa farshaxanimada afku bartaa in baan doonaa inuu ku yiraahdo beenaale aan laga soo goynin oo adduunka ninka ugu beenta badnaa baa tahay weligaaba run maad sheegin dee ninka ku ag joogaa markaad intaa ku tiraahdo intaa ku eegaaba kula dagaalamay wax kuna maxaad yaacay hadda xitaa isagoo been sheegay hadda intaa ku tiraahdo wax kuna wardeha yaacay oo markaa qaybtii weynida iyo bilaadanimada iyo karaamadii kuna wardeha yaacay hadda been buu ku sheegay laakiin meel buu kugu xidhaya si aanu sidaa ugu oran buu inta soo eegay wuxuu yiri markaas haddana wuxuu ku yiri war beenaal ah tahay oo bakayl cadow la ayaba tahay oo labada gamcood Sacuudiga gooyay baa tahay waxba bixinin weligii alihan dee ninkaan intaa ku tirada gacanta ku saar oo kala dagaalamaya ninkii isagoo ag fadhiyo wuxuu ku yiri ma taqaanid beentay runta barashadeeda bele ka hor joogta hadda u fiirso sida ugu dhigay ma taqaanid beentay runta barashadeeda bele ka hor joogta waxba uu reebay bade waa intii waa farshaxanimada afka afgobaadsi baa la yiraahdaa afgobaadsi manatid bakhaylkii biiqoon waayo waxaad bixin lahayd baad baahantay waxaan aad bixin lahaa doonaysa inaad bixisay bakhaylada aduu baaba u baahan malaha oo intee haysanayee bakhaylba mid tihid buu bakhaylnimaduna waa waxaas markaa balaagada sida yara ugu dhigay wanaagsan farshaxanimo ku jirto oo qaybta inan baa inan soo haasawo tagay uu doonayay dibadna dumarku waxa ay ahaayeen berigii hore dee dhaqanka ragga way baaray jireen madaxooday baari jireen ninkoo soo jeeday baarayaan oo dibadna ay oranaysa war iska soco sideedaba saddex nin gabar haday u wada yimaadaan nin waliba erayga ugu horeeyay markuu yiraahdo gabadhaasi ninka raganimadiisa way haysaa waa aqli ilaahay siiyay laakiin 300 nin haday israadaan gabar bal aqligeeda eega ma keeni karaan waayo malaha waxa dee abuurta ilaahay uu abuuray inay ragga baadee yani malaha mooyi ha sida inta u egtay tiro war bal dhulka laalaab uu soo haasaabo tagay dad aniga ay doonayso dhulka laalaab waan ku yeelayaa bay tiri dee mid kale markaas oo oran lahaa xagan ku laalaaba wuu culus yahay gabadhu macnaheedu dhulka laalaab ma hay xigmad bay baaraysaa inta sidaa u eegay isagu inuu ka dhaqaaqan laalaabe simba dhulka lama laalaabi kara iyana kama dhaqaaqi karta dee kama kici karta ka kacbo leeyahay caga ka qadanaa laalaabayay isma buu hawlin waa aqliga baarashada bal hada garaadka ninkani inta ay malaynayso war dhulka laalaabayto dee ka dhaqaaqi wiilana laalaabayay la isma hawlin waxaan kaaga wadaa intaasoo dhan waxay ku xiran yihiin waa garaashada afka Soomaaliga aad u adeegsanaysa iyo garaadkii rabbi ku siiyay adeegsigeedii baad waxaan oo dhan ku keenaysaa qof waxaad ku baari kartaa adoo eriyo ku weydiiyo bal humaaga waxa halkan ugu jira eriyo baad kaga soo saari kartaa aqligiisa iyo raganimadiisa maanta hadii halka istaagu feeriyahay hayo cid feeriya laakiin daan laba cali isma weydiinaynin ba maartay waa ardaal iska yahay ardaal daan awla xaw yahay dee feer ku raaci meesha gabadha halkan ay ku raacaysaa halkanna waxay ku soo saaraysaa inay inta hadal gelisa hadal kaga soo saarto oo inay su'aal weydiisa waa in jawaabihiisa ay eegtaa waa af waxaad wax ku baaranaysaa iyaduna aadamaha baabka labaad ee maanta doonayno u galaa marka ay isku murgaan ama uu ariyimaado waxbay meel dhigtaan garta Soomaalida markaynu maanta eegno waa meelaha ugu badan ee laga eego xadaarada iyo afka ummadaasi ku soo hadlaysa soo jiraankeedu inta uu la eg yahay waxaan doonaynaa inaynu humaa guud iska siino siday ummadani u kala baxdo ila waa qayb dhan oo nolosha ka mid ah waxa ajaayibku yahay garta Soomaalida markaad eegtay siday Soomaalidu gartooda u naqsan jirtay
caalamkani weli ma gaadhin waxaan aada u xasuustaa berigii boorame 93gii somaliland la isugu tegay halkaa lagu heshiisiinayey nin maraykan oo meesha joogay baa wuxuu yidhi aada mahmaha ka tegey nin aadan dheero la yidhahda berdhe xasan nooga sheekeeyey markaa joogay nin aadan dheera la yidhahda waa nin reer londona ayaa aada iga sheekeeyey wuxuu yidhi ninkaa maraykankii wuxuu yidhi waxa cajaa'ibku yahay buu yidhi markaan anigu waxa bilaash ku haysataan baanan anagu goynin buu yidhi nin billionaire mooye aanu nin kala goynin idinkuna bilaash ku haysataan buu yidhi maxaa ka mid ah buu yidhi wuxuu yidhi niyo imika haddii kiis aan doonayo inaan anigu looyar qabsado buu yidhi 7 looyar ee maraykanka ugu wanaagsan ama gobolka aan joogo ugu wanaagsan nin billionaire baa lacag ku bixin kara idina ninku qabiil buu ku helayaa garta marka reerkoodu raaco 7 nin ee reerka ugu afgariya qaansan baa la soo raacinaya ninka halka iska fadhiya iska sidayda darxumaysan maartay 7 ugu gariya qaansan reerka ayaa waliba bilaash halka ku fadhiya reernimadii iyo insurance-kii baa lagu joogaa waa markay bahashu akhlaaqda leedahay iyo quruxda maaha bahashan la soo wada cumaamatay salaadiintan iyo waa qaybaha kulli barnaamijka inuu ku soo diro doono salaadiintan iyo cuqaashan iyo imika ummadii meelweyntu de habaar bay ahaan jirtay markii meelweyntu ka daciifto moogtay ummad Soomaaliyeed dhamaanteedna meelweyntu ma ka daciiftay marka waxaan ka wadaa garta bilbiba haduu dhaco sideedaba markay wax dhacaan Soomaalidu laba bay u qaybsaa wax kasta ba ha dhacaan nooc kasta ha u dhacaan dambiba haduu dhaco labay u qaybiyaan waxaas ma dhulba mise waa dhaqan bay yiraahdaan dhul waa dhiig daatay dhaqankuna waa wax alla wixii kale ku saabsan aan dhiigahay mar baynu geli doonaa dhacdan xarfahan la qaafiyad raacayo marka hadduu dhul noqday dhulkaas haddaba ah dhiiggii wuxuu u kala baxaa waa qudh iyo qoon waa qudh baxday naf baxday iyo qoon dhacday ama dhaawo ha noqoto ama jabniin ha noqoto ama wax kale ha noqoto waa qoon iyo naf baxday wixii dhiig wixii dhaqanina waa xilo iyo xoolo waa dumar wax dumar ku saabsan iyo wax xoolo ku saabsan waa xilo iyo xoolo qul qoontii ayay qudhii noqonaysaa maxaa haddaba loo dilay ninkan mar hadday qudh noqotay oo nafti baxday maxaa loo dilay ma kas baa loo dilay mise kamac baa loo dilay horta weeye haddana ma bareer baa ninka loo dilay ama shaksiga loo dilay mise kamac baa loo dilay kamacii baa haraya kaskiiba wuxuu noqonayaa wax aana ku saabsanoo ma utun baa loo dilay mise aar baa loo dilay هذا كيس ولا أنتوا سي صعونية وين سي بعدين دونا كل أنتوا نبلكوا تجين ده كان كي وحنا نقول يا حلا يا حارة حوله وحي نقول يا حله وحنا نقول يا مدمال به ما قبل فروتان كيد به وواحد واحد دمر كوس عفسن حوله وحنا نقول يا ما واحد بير كتشرة مستوى واحد بير كتشرة بيرتو وحوله كيس كود وحبو كدح دعي كراون والله بقول على إنني أبيه وإن وضع له وحرده وجدته يوحي حرده كسر كيما كبنانك وها حرده كبنانك وبرتي رمحون قنيا مجان إيا مور ما يوبر يا بيرتي هل كها ينوتشوكت برتي واحد نقول إسا مجان إيا مور موردي waxa xirada ku jira ee family wada leeyahay magantina waa wax baadi kuugu yimi ama wax dhac ku yimi ama wax tuugnimo ku yimi ayaa la yiraahdaa waa magan ama waa moor kiisasku horta inta badan sidaas u bixi jireen dabeedna sida loo raacayo ayaa waxa la heli jiray kiiskaasi wuxuu yahay
dembigaa dhacay waa maxay waa dhaqan muxuu ka yahay xoolo muxuu ka yahay bar muxuu ka yahay magan muxuu ka yahay say tuugadaa markaad joogta ayaad shuruucdii tuugada la gelaya dabeedna kii uu ahaabaa lagu dhufanaya lamaba layskuma hawli jirin waa waxaan galay de aqoon gashay dheer balu fiirso mar walbana laba eray oo isku mid ah mar baynu geli doonaa dee isku wada buushaaqin mayno maanta moogti كل ما أنت ده تاجرياشي إسراع بسومالية تاجرياشي كرسم بقى إسبران أي عنقي وبرش ما أنت يسوق إنه ريسي مركا إنه كلا فايدين إنه بيدوننا سودوي ونأقسم الله كلنا أنا قلنا ديرهما ونأقسم الله يمن دون إن شاء الله تعالى مركا هالكاسة كيس كي لقى سوق عادية وحدوني هنا أمتنا الصومالي بمحل الهانشري وحد أمتنا كلا الهانشري بالهانشري كيس كانوا عليه الهانشري إلا إمك وتمدن أعتنا هذا ديفلوبمنت كان ترجع بها الله هذا أيام كيسات كانوا أنا أمام جلسة سيد سيد الله صل كونفليكت مانجمنت أنا رايحين أي سومالي دول الهانشري أما اللي بعتذر سيد اللي يحلله سيد اللي يحلله تبي سيد إنه أكسر كون أكسر اللي بيحلله وهذا كسيد يسكون جرمانيا أو إنك الله يركبك حلي ويسوي كيس كاوين جريه وما رقف كاكل واحد وإنه كيس كون حيوم يسوي كوجو ليسته حقينا لو حن هاجرتي تي إلهي بقى كتبت داعد نمرة هي قلت هسا هدنا مركز سدا أود عضو أيها واحد الله يقول لك كسابسان أما قلت كسابسان إيه رج إسكيل جورت له أيها واحد كذي جبت ترمينولوجي أما إريا جارة أو أي ليهين أما أي جرت الله ده ومركز وجوه رئيس مركز جرل اللي هي واحد كذي حربيت جراها قاربان حربيت اللهين أو جريقان أما جورتي أما ننجرال اللي هو كتاليا جراها في قيبت فضود واحد تجرت لين هذا جرجرشو يجر يدو مركو هرم ميل سي أحيد ولا سي قدومي تصال فرس أرداية أيام نسيدي عليا مكاسو دو فرس كيما هذه كتشيستي حاجة كلو عربي من كيف فرس كلا هذا أبين كيد لبادي يوحل وأنا فرس أرداية والما أنت جربتي بقى هالك أكو أركو دبان لدبوري دق مكوت دبوري فرس كيجي عدق عقبة بعد شيء فرس كهالك أكو أركان سيدي مكوتشوش اللي يقول عدق عقبة هذا أنا العتيسي waxa ummadda dhaqan u ahayd oo meel u taalay farasku marka uu baxsadka yahay lama jaraha laga duwo raadka sidaad ugu socoto waad soo helaysaa laakiin hadduu mar laabto bes weeye ma soo helaysid lama joojiyo faras ordaya ama qabo oo halkiisa ku hay ama ka dhaaf dug baa la dhibuuri digma kugu tiri adaa ka majarihii de ka duway uu haystay ila meel buu ku ordayay waa garaha ajaa'ibka noocaas waxaa jirta iyana gargarasho nin nageegir la odhan jiray oo deegaankaa bariga deganaa halkaa buur dhaab agteeda iyo deegaankaas ayaa xajka tegey markaa qaadulqudaad buu ahaa reerkooda nageegir baa la odhan jiray dabadeedna show nin reerkooda abaa intuu uu maqnaa nin reer kale ah malaa isla reerkaa mise reerka kale de beriga wada degaan ayuu gacan buu waran kaga jafaafo gacantii baa baktiday ninkii labadii reer markii ay isu yimaadeen kontonkii halaadee gacanta ayaa dee magti ila waa la isla garanayaa tani waa shariiciyane dabeedna markuu xajkii ka soo noqday buu yidhi waar bal warramo nageegirow intay reer ku yimaadeen bay yidhahdeen wadaaddo adigoo kale un baan helay haye dee arrinkaasaa dhacayo konton halaad bay qaateen kontonkii halaadna waad ka soo gaadhayo dee muddada caynkaa leeg way u imanayaan oy urursanayaan dee ama reerka waxaad noqon doontaa magaranaysaa dee sadaadaadi baad iska qaadan arrinkii dee wadaadnimadaad u joogi dee ama wadaadada haddaad naga celin weyday ha waa garahu siday ahaayeen wuxuu yidhi bal idinku maalintaa haynu ahaato maalintii la isugu yimay oo mataqohi dee maaragtay meesha lagu kala qaadanayay garta ayuu isagoo bahal gudin oo afaysan wata ayuu yidhi reerkuu ka dhashay reerkii kaleba wayaabay waar gudintan muxuu ku falayaa bahal dee xaabisa wuxuu yidhi idinku faraa ka qaada oo waa reerka madaxdiisii iyo halkeenu reerkii kula tugu xuli war salaadii way dhowdahay xoolihiina waa kuwa nimayahow kontonkiinii halaad waa kaase annana waxaa naga haysaana siiya buu yidhi
reerkii baa ayaa weli maxaan idinka haynaa wuxuu yidhi ilmaada reyaal soo gacan nagamaydaan naganin buu yidhi ha gacantu inta ay ka baktida tahay baan goosanaya weli inta gudintii la soo baxay ile magteedii 50kii halaad baa iga qaadateen reerkii kala isku noqdo waxay dhahdeen waa ninka gacantan baktigii maxay u taraysaa wallahi deg shaarka u qabato go ay u qabato shaybkii 15 halaad baa loo gooyay in la joojiyo garaha noocaas gargarashay ahayd waxaa jirtay garbooli laba nin baa qori isku qabsaday markay dagaal ku jireen baa nin qorigii ku dhuftay kii kalena bareerkii rasaastii ugu bareero uu ka hor qaaday Soomaalidu labadii nin markay qosqosay kana waa ma xilliga asal bareero qoriga waan soo qaatay kana wili ana dishooday ninka ayaa la yiri garb baa la yiri marka booli waa ninkii ku horeeyay gacanta ku qabsada ama dila ma hadilina ama meel kale ha noqoto ama uga ha noqoto nin waraaba dabtay waraabihii markuu dabay uu dabanka u galay ayaa nin kale intuu soo maray dilay waraabihii kii kale ayay waraabahii waa dishay magtii baan ka rabaa oo maxaa dhacay ana dabtay daban buu igu jiraa waa dishay kii kalena isma waa loo xiriiday waraabaha lagu sargooyay magtiisa soo qabo markaasaan ku siinay waraabaha magtiisa yaani garaha noocaasa yaani maankaaga gadayaan haddana garasho dheer bay u baahan yihiin waynu sii wadi doonaa garta culus garjileeda garta xeerbeegtida garcadaawe gal jirib caro waynu geli doonaa barnaamijyadeena soo soconna waxaynu mid kaamilka u gelaynaa qaybtii ugu horeysay telefoonada ayaynu gelaynaa insha Allah taala kul injineerkina waynoo furi doonaa magaranayay waana soo wici doontaan telefoonadu markaas imika way furan yihiin laga bilaabo imika waana soo wacaysaan okay waxaynu u gelaynaa inta telefoonadu inoo imanayaan marka aynu dhalinyaradan dambe u nimaadnay heesaha jacaylka sida uu sameynaya jacaylku mar fawaaxish buu galaa oo noloshu ka saara oo markaad quri iyo waxaan wanaagsaneyn aad ku doonto hello السلام عليكم كو وي جعلكم مدبنه الله يسسارون بوا فواحش جعلكم مين انت كمغاليسا waa fawaaxish hadii dhaqan xumadii aynu jacayl ku tilmaanay dabeednaynta eraya laga sameeyo lagu heeso subhanaka ya cadiim waa dhibaato taasi bata inaynu galan ma hawa jacaylku hadii uu dawaali caskeeno ya hello السلام عليكم hello السلام عليكم عليكم السلام كسو دو البرنامج كان سباع السومالية مقعاقي هالكن كسو مقعاقي هالكن كسو هالي صورة لي شيء مقعي وعبدالقادر أحمد كسو هالله مقالة مقدشو هاي والله برنامج كمال سعودي عبدالقادر أحمد كسو هالله مقدش برنامج كمال سعودي ما حدا قال قادر عبد القادر يعني waxaan kala qayb qaadanayaa runtii si fiican aan ku bogaadinayaa si israaca afka Soomaaliga ma ay soo kala dhigto هيا عبد القادر waan ku dhigaysayna sida dhalinyarada calaashan ugu baraarujiso in ereyada qaar calaashan ay sahan ku habooneen صح calaashan ay ka saaraan صح walaalo marka waxaan ahay taageerashada mid kamid ah aanu ku الله يعسى عبد القادر الله يعسك ilaahay ku xafido walaal عبد القادر dee halkan uu ku wada socodana insha Allah taala waanu wadayna insha Allah taala waa ma santa walaal عبد القادر hello السلام عليكم khadka labaad okay jacaylku inuu akhlaaqda ka taga maaha jacaylku waxa dareemayso waxa dhaqanka iyo ummadda u fasahaadisan maaha war jacaylku waa asluub gaara oo dhaqan iyo ixtiraam iyo sharaf leh war marina adigu shakhsiyadaada iyo damiirkaagii qaawiso maaha
marna shakhsiyad qof kale oo caana inaad qaawiso maaha subxaanaka yaa cadiim taa jooji waa inuu qofku dhowrsanaadaa hallow salaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد قود وحلا إلى هذا أسد أحمد أسد وعن كسو هطيا كولومبوس أوهايو الله يعيسك أحمد أسد يوم والله ما حد قال خير قادم يسا نبض ولا لو وحن كله هاي همبليو أبعاد بان وفرح سنة هاي مرة واحد الله يعيسك ما أنت أدوك على دق سكرا الله يعيسك وحيون مولي عندك وين هسا وهايسته in dhaqankiiba uu duugoobayo ma moodayaan aad baan inaadeer kugu taageeraya aad baan kugu taageeraya allah yacizak mayaana ugu darin adeer baan ku leeyahay mahaana ugu dar waynu soo wadnaa barnaamijku dee marka ka hilaacinayna insha allahu tacaala halkan inu mahmaahii garihii war wax walba ilaa iyo aqal soomaaligii iyo dhaqankeenii iyo magacyadii iyo geelii iyo hooyadii iyo heescaruureedkii iyo caruurteenna waxa dilay waxa weeyaan waxabaa waanay hooyooyin kuu sheegaynin heesihii iyo dhaqankii yaryaraa tii baynu halkan usoo dhigaynaayo caawa habeen walba halka caruurta ka seexsanaynaa intaynu hees ciyaareedkii u qaadno magaranaysaay bedtime storygii baynu halkaa uga sii dayn doonaa insha allahu tacaala aad baan inaadeer kuu salaamaya hambaliya baan ku leeyahay labada channelba miyaad ka shaqaysaa mise waa kalsanuun imika kalsanuun baynu joogaynaa insha allahu tacaala waad mahadsan tahay inaadeer khayr baan ku rajaynayaa allah yacizak walaal allah yacizak walaalo axmed allah yacizak asad axmed waa markii igu horeysay intii aan telefishin ka shaqaynayay maraykan laga soo diro asad axmed waxaan leeyahay hambalyo welimada columbus ohio aad baa u wanaagsantihiin waa midaynu hayn doona hallo salaamu calaykum hallo salaamu calaykum walaal magacaaga halkaad ka soo hadlayso wala cabdi godoonku waa jibriil maxamed furxaan xaggaad joogtaa wala london baan kaa soo wacayahay hayo walaal jibriil ma la socotay barnaamijka maxaad nagala qayb qaadanaysaa walaal si wacan walaala dee inaan ku habaliyay allah yacizak الله يعسك ولا برنامجك أيوة روح سيدة الله يعسك ما كوري ولا لا هيدا حفظه آمين آمين سبحانك يا عظيم كسر بس فوت كسر سيدة ها ما كسر بين النهاية كان قبل له وكا هكا شو الله كله والله الله يعسك ولا العاد بعد ما صرت هاي ما إلهي حفظه ولا اللي ما أنت ويا شرفتنا الله يجي شرفه بحين دوننا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم بالكسر لو مقعد halkaad ka soo hadlayso walaal waxaan ka soo hadlayaa Bristol najmo magaceeda najma la yiraahdaa najma xagaad ka soo hadlaysaa sorry waxaan ka soo hadlayaa Bristol okay Bristol najma barnaamijka ma la socotay maxaad nagala qayb qaadanaysaa barnaamijka waa la socday cabdi good waa ku salaam adiga telefishinka صح هلو waan ku maqlayaa walaal iyo waan ku maqlayaa waan ku dhageysanaya walaal live baad ugu jirtaa هاي هذه telefishinka waa ku salaam waxaan ka qayb qaadanayaa ma sha Allah يعني in afka Soomaaliga la isku toosiyo wax fiican way haduu yar qaldan yahay waa sax ina waxa qaladaadka in laga bixiyo oo qof kasto wixii si loo toosiyana way fiican tahay wixii hadda ka dambeeyay iyo insha Allah oo qalad ah oo daa'im isa saxdo halkan iska saxdo nimanka kale wax fiican waa aniga taageerayaashaada ahay subhanaka ya adina waa wax fiican kalmad ee ah ma sha Allah subhanaka ya adin waa ilaahay ciibka nasan ilaahay waxna ka fogeeyaan waa inay qurux badan ee fiican waa taageerayaashaada waan ku salaamay Allah yaasik waan ku leeyahay الله يعسك خدك تلفك كي يقول دنبيه بين قاضينا دبنا واحد نقول لنا برنامج كنا قيبتي يقول حساب النيد هستي مانتا بارك هلا والسلام عليكم خدك ساقو دنبينيه كلي مانتا قيبته هوري هلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عبد قرط وعثمان اللي هذا خاصة وعي الدوحة قدر دوحة مقعي ولا دوحة مقعي دافعي عبد الرحمن عبد علي سوى اوه عبد الرحمن بس مقع بابا انه عبد الرحمن بالنسبه للبرنامج محمد قال غير قادنيسا سيسي عن برامجك ولا سعد الا يسرعك الصومالي وبلاوي الا يعطى الله يعيشك اطلع هو مليان يا الصومالي يا تاريخ دي
سويالك الصومالي دقن كيلو من دب وصحدو أكاديمية نقطة ورمود نقطة أكاديمية دي أفك دقن كدب وصونولان لغوان كايم الأيام الله يعسك ما دام أفكي دقن كي دمان أيو جهورير كدعي دقن قور إمين قور كدعي سوغانتي إنا دب وصونولان سوحيواك قلدان برشد وحي قلدان إن لغا قبطو صح marka heesa badan baa soo bandhigto ka hadlayaan diinta xagga diintana ku fiicneen xagga dhaqankana ku fiicneen oo ku wanaagsaneen dadka iska hadaaqaan ma marka waa kaga madcelinaa barnaamijkan laba jibaar waxaan ka codsanaa barnaamijka inaad isbuuci laba jeer ka dhigto si dadka u baraarujiyaan insha Allah ta'ala adeegsanaya ayaa qaldamay insha Allah ta'ala ma kalsan TV waxay aad u horumarin doontaa barnaamijkeenan iyadoo ku celiskuusuna fara badnaan doono waqtiga la kordhin doono managementku way ka shirayaan war wanaagsan baa ka soo bixi doona naga suuga ama magarata hadaa la yiraahdo waynu kordhinaynaa walaal insha Allah ta'ala marka anaga ku madcelinayna hadaan ay jaariyada dooxa aad baan ku madcelinayna barnaamijkagana aad aan u taxanay 100% ku taxanay waan la soconaa dadka mujtamacana in loo faa'iideeyo wax meesha ku jira marka barnaamijkagana meesha ka sii wad wixii qaldan dadka in laga saxo waa waajib ummadda wada saaran insha Allah ta'ala wax la kala siyaasado ilaahay yiraahdo insha Allah wax kala faa'iideysano at least wanaaga isfarno ayaa qurux badan khadka telefoonka halka ay yeeray istaago waxaan doonayaa bal hadda inaan galo markaa warnimayahow waxaynu niri dareenka jacaylku qofka bini'aadanka ah xumo uma horseerada inta badan haddaan xumo gelinaynin adigu subxaanaka ya cadiim waxba yaana sii aaraaranin waxba yaanan heese qurux badanin maanta keeni 20 bayd baad ila dhegaysan doontaan waa 5 bayd iyo 5 bayd iyo 5 bayd horisoo labada bayda anigu waxaan garan waayay waxa inanka dhalinyarada ah ee iga yar ama ninka weyne ila da'da ah iyo wixii ka sii yar ee heesa sameynaya ay wax fawaaxisho oo aakhiradooda u xul niyo aan qurux badnayn inanimo midna ku qurux badnayn subxaanaka ya cadiim iyadoo daahir ya shamiso waa la casa ay istiriidada u soo dhigayaan ayaan anigu garan la ahay inkastoo dhibkiisuba u badnaa dhankayga caashaqii dhaawacay adna waa dadamiso dharaarahan ma moogide mar hadda dhegayso inkastoo dhibkiisu jacaylka dhibkiisii u badnaa dhankayga oo anigu aan u badnaa dhankayga oo ninka wax badan ku jeceel aan ahay waar ma diidayno dee wax maanta intaasi may odhan bal hees ahaan iyo magarata tiraab iyo shuruucdii iyo wixii aynu ka tagno waa daahir yaa shamis aynu bal eegno caashiqii dhaawacay ee anigay dhaawacayaan adiga kuu qabay buu bal waynu inagaa toosinayna xitaa bal sida ugu wanaagsan u dhigayna si aynu u eegno subxaanaka ya cadiim waxa soo socda caashiqii dhaawacay adna waad dhadhamisay xaggaygu u badnaa oo wii dhaawacay adna waad dhadhamisay sidaa quruxda badan aynuu dhigno dharaarahan ma moogid maalmahan dambe ma moogid buu leeyahy yani waad og tahay buu ujeedaa isaguna halkaa way kala boodaysaa yaynan kuma daahin taa waa sii daynaynaa halkaa mid la soo baxa cudeeyahaasi kaabaha naaxiyaha marka hore eegada odhanaya adna waad dhadhamiso waa cudeeye cudeeyahaasi wuxuu ku jubuqtaaminayaa caashaqii dhaawacay ayuu taagan yahay oo ah markaa kaaba naaxiye cudeeyahaasi kaaba cudeeye una helaaba ahayd laakiin muu helin muxuu helay waxaynaan garanayn oo ah dharaarahan ma moogid aynu ku dayna haddana oo u dayno muddo badan isdhowrne ma isku soo dhawaanaa dee kadah ku dhawaanay bal hadda u fiirso muddo badan isdhowrne subxaanaka yaa cadiim ma isku soo dhawaanaa dhunkasho dibnaha faruuryaha dhulka kula wareeg war xagguu wax ka geeye allah hayaay jacaylkii dhammaa ee hayay ee uu la buuqayeybaa dhakab ma isku siinaa dhaxan hayna daysay subxaanaka yaa cadiim bal ninkani waxaan uu yidhi dhegaysta ilaahay baan idinku dhaarshiyey waa maxay muddo badan isdhowrnay dee waynu isdhowrnay muddo badan ma isku soo dhawaanaa dee kadaa ku dhawaane balaayaa ku dhawaatee kadaa ma isku soo dhawaanaa jacaylka dhan ee ninkaa hayey ee dhaawacay ee inantana ay og tahay ma isku soo dhawaad iyo dibna laysa saaraabaa subxaanaka yaa cadiim dee bal u fiirso
ma isku soo dhawaanaa dhunkasho dibnaha faruuryaha bal intuu israaciyey dhunkasho dibnaha faruuryaha lagaago waar wuxuu siduu yahay subxaanaka ya cadiim muddo badan isdhownaye ma isku soo dhawaanaa dhunkasho dibnaha faruuryaha dhakab ma isku siinaa dhakab lagaasii dhaxanyahayna daysee subxaanaka ya cadiim macnaha waalan macadan baa laga heesaya khadka teleefonada kolley waynu u geli doonaa beydkii dambena waynu wadaynaa laakiin waxaan idinka ballanahay idinka maganahay walaal haddaan qaldanayo soo saxa ma heesba subxaanaka ya cadiim waa licasoo guryihii inoogu timi miyaan ahayn iyadoo lugaynayso daahiriyaa shamisa dharaarahan ma moogide muddo badan isdhowrnee ma isku soo dhawaana subxaanaka ya cadiim faruuryaha dibdhaha dhakab ma isku siinaa dhex waxa hayey ma jacayl buu ahaa mase waa temptation dee anigu wax kale ku sheegi kari maaye inkastoo aan duunigii dandanaansi mooye aanu dhaafay awga iminka markaan nin israacno idhaahdo anoo dheregsan wallaahi waa dhergeye dandanaan yarun baan rabaa dandanaan duunigii nin dandanaan raba waa nin dhergey eegata ereygaasi ma qabanaya meesha inkastoo aan duunigii dadhamaba aan u diiday yani dadhamaba adiga aawadaa u diiday dandanaansigaa dadhamaynu ka dhigaabay hayde laakiin ninka dandanaansi doonaya waa nin dhergey de oo dhiseerki iyo wixii doonayo soo dhergey birimadii iyo suguntadiiba soo qaato teersadii doonayo dee weeye nin teersa doonayaana ma gaajoonaya dee miyaana dee ahayn dandanaansi dee nin dhergey ma dandanaan doona subxaanaka ya cadiim baad albeena sida ahayd horta dawda inkastoo aan duunigii dandanaansi mooye aanu dhaafay awga adna dhowristoodii dhulku kula wareegi inaad siday isu qabataa adna inaad intaad eegayso dhulku kula wareegayo waad gaajoonaysa miya aynu sidaa gubadayno ninkaa dhergay iyo intaa gaajoonaysaa inay sidaa isu qaban haddii aynu dayno waxba kama qabo ayuu wuxuu ku noqday hooriskii balaayadu ka dhacday subxaanaka ya cadiim markii hore dee oo wuxuu ku leeyahay muddo badan isdhowrnaye waynu is eegayno dee dhowrkii jacaylka maaha waa dhowrkii kale hayaaye waa lixas muddo badan isdhowrnaye ba isku soo dhawaanaa idinkoon iskuma soo dhawaanin xitaa maydaan wax dhamaysan karaynin miyaanu humaagiisa iyo caqligiisa iyo afkii aynu maanta o dhan ka soo sheekaynaynin ninku markuu af yaqaanaa buu meelo kala marmariyaa laakiin inay dhac kaga dhegtay oo dhunkasho iyo dhawaad iyo faruuryo iyo waxbuu gelayaa dee war miyaanu xereyo kaloo dhaca xitaa iskama soo qaadi karin tiraab ha iska noqoto muusig la saare tiraab muusig la saaray baa imika iska fara badane ha noqotee miyaanu samayn karaynin waxaynu u gudbaynaa dhowrkii telefoon ugu dambeeyey dabeedna barnaamijkii waynu soo gabagabaynaynaa wuxuun baan anigu kaga tegayaa war nimanka wax samaynayo halow war nimanka wax samaynayo war qoodhiin iyo xaradiin idinkoon isku soo dhawaan idinkoon dibnaha isa saarin idinkoon shafka isa saarin miyaan jacaylka si kale loo dhammayn karin way iska maagayaan buu yidhi way ii mala awaalaan isagoo mir keliyahe 10 magacu yeelaan maankay la tahay maanta la tahay berrina uu ka maydhma jacayl maaha kaasi marmarsiiye keliya muraadaysi weeye wuxuu mahadhan leeyahay isagaa maalay waaye ma tagee cishqigu qalbigu mirtaa naftu may dhacdaa teleefanada waa soo diri karaysaan bay la tahay labadii teleefon saddexdii teleefon ugu dambeeyay baan qaadaynaa bal heestanna wax ka dhaxday idina anigu intaydi iriya bal intiini yaa miyaanay waa la casahay daahir yaa shamis lugaynaysaa ma isku soo dhawaana ohe wuxuu yidhi galabtiina layrsiga waxaan u malaynayaa waxaa la gaadhay timekaygii xilligii warka ayaynu dhaafnay waxaan idinkaga tegaynaa dadweynaha iyaga sharafta leh maanta waa maalintii koowaad waa maalinta aynu isu nimi kolley waktigu waynala taraaray lakiin marka dambe waktiga waynu inoo soo gaabin doonaa waxaan idinkaga tegayaa marka horta ordineeradayda
waan leeyahay bahda kalsan dhammaan injineerada halkaa maanta waran 3-4 nin baa halkaa qalabka maanta hogaaminaya aad baan u salaamayaa waxa aan salaamayaa maanta oo salaanta iska leh Rotterdam welibana South Rotterdam baa hoonta maanta iska leh salaanta waxaan baan idin leeyahay kadaba iyo kulan xiisan leh